waxay xambaaratay dhiisheedii gabadhii iibin jirtay caanaha, waxayna aaday halkaa iyo magaalada. Intii ay waddada saarnayd waxaa maskaxdeeda waalayay riyooyin fara badan. Mar walba oo ay socodka dheerayso waxaa maskaxdeeda soo galayay xisaabinta lacagta ay ka faa'iidi doonto caanaha. Waxayna ku dhisaysay waddada mustaqbalkeeda dheer. Waxay tidhi, waxaan soo iibsan doonaa 100 ukumood, kadib waxaan u dhigi doonaa dagaagaha. Way bujin doonaan, waxayna noqon doonaan juli-juliyaal. Kadib way weynaan doonaan. Markay weynaadaan waxaan ku soo iibsan doonaa wanan. Kadib way weynaan doonaan. Kadib waxaan ku iibsan doonaa lacag aad u badan. Kadib lacagtaasi aadka u badan waxaan ku soo iibsan doonaa sac guduudan, wuxuuna ii dhali doonaa weyl, wuxuuna noqon doonaa dibi. Alla maxaa ka qurxan dibigu marka uu weynaado uu ku ciyaarayo bannaanka. Waxay riyooyinkeeda la socotaba ugu dambayn waxay ku dhufatay lugta dhagax, waxaana halkaa ku jabay dhiishii caanaha ahayd. Waxaana ku dayacmay riyooyinkeedii aadka u badnaa inay soo iibsato ukumo, ilaa ay ka soo gaartay darajada inay soo iibsato sac, kadibna uu u dhalo dibi aad u qurxan. Riyooyinkii halkaas ayay ku soo gabagaboobeen. Waxaa u soo haray oo keliya qiso murugo leh oo ay ka sheekayn doonto markay u laabato guriga. Sheekadiinu halkaas ayay ku dhan tahay. Haddii aad u baahan tihiin inaan soo badino sheekooyin noocan oo kale ah, laygta ha loogu dadaalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.